waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo ilaa 6 qodob oo ku saabsan arintaas. ciidanka booliiska Soomaaliyeed saaka waxay dabdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada Muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday. magaalada Muqdisho tan iyo markii ay bilaawatay arinta dabdamiska tirkoob uu sameeyay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa 147 meelood oo meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baabaaday hanti Soomaaliyeed oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd. marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska Soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahad celin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. sida aad la socotaan booliisku wuxuu waqti dheer siiyay muwaadiniinta deganeed goobtaas waqtigaas oo maanta ku ekaa odayaashii dhaqanka iyo bulshadii nagala shaqaysay waqtiga maanta ku ek ee arinta dabdamiska noo mahad celina waa dad ku dayasho mudan odayaashii dhaqanka iyo dhalinyaradii ka shaqaysay arinkan dadka intooda badan maadaama ay guureen intay hartayna maanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed baawur iyo wax kasta ugu deeqay insha Allah. odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada gacanta naga siiyeen aad ay u mahadsan yihiin. waxaan kaloo u mahad celinaynaa muwaadiniinta halka deganaa oo intooda badan arinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin. anoo rabna inaan u mahad celino bulshada Soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan dabdamiska oo garawsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed loogu adeego goobtii oo qaarkood ayaga si isxilqaana u guuray goobtii ugu guuray muddo horaba ka guuray kuwii u dambeeyayna shalay iyo darad ay ka guureen inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn oo ay ku guuri lahaayeen. maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii dabdamiska oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay 140 ka meel ee gubatay qaab loogu gurmado la waayay in dabdamiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baawurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara dhammaantood waxaan rajaynayaa in dabdamiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada Soomaaliyeed ay qabto. number 6 waxaan aad ugu mahad celinaynaa intii gacan naga siisay in goobta hawshan lagu guuleysto ay bulshadu u hoggaansanto ama awaamirta ka soo baxda dawladdeena hawshan oo aad dareemi kartaan culayska ay lahayd balse waxaa noo fududeeyay dadka deegaanka oo garawsaday u hoggaansamay awaamirta dawladda oo aan leeyahay mahad celin ballaaran maanta aan ka daalayn inaan u mahad celiyo bulshada Soomaaliyeed ee garawsatay in dhulkan dabdamiska ah baahidiisa ay taagan tahay markaan la shirnay tusinay dhibaatooyinka magaalada ka jira tusinay dabdamiska baahida loo qaba waxay garawsadeen si mutadawacnimo inay goobtaas u baneeyaan. waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed inteedii arinkaas gacanta ku lahayd waxaan anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan idin siinaynaa mahad celin ballaaran. waxaan rabaa inaan saxaafadda ka codsado inay la shaqeeyaan ciidamada ku jira shaqadaas u hoggaansamaan ama awaamirta ay siin doonaan ciidanka. saxaafaddana waxaan leenahay dabdamisku bulshada deganeed iyo booliisku way wada shaqeeyeen wuu dhamaaday dhismihiina waa la bilaabayaa inay ka shaqeeyaan wanaagga ay gacan siiyaan bulshada horumarkeedii tusaan dabdamiska baahida loo qabo naftirkeeda. insha Allah saxaafadda waxaan ka codsanaa inay la shaqeeyaan ciidamada awaamirtooda u hoggaansamaan. waana mahadsantiin.